Bismillahirrahmanirrahiim. Cashirkan waxaan ku baranaynaa wax la yiraahdo deferment and optimized drive wax la yiraahdo ayaan ku baranaynaa. Computerka wuxuu leeyahay wax la yiraahdo hard drive hard disk ayuu leeyahay oo lagu hayo all the file systemska oo computerka leeyahay ayaa lagu hayaa. So marka waxay sameynaysaa taas in faylashii sometimes ay isku dhex yaacaan ayay noqon kartaa. So marka defermentiga wuxuu sameynayaa in uu saxo faylasha uu ku sameeyo organize inuu ka dhigo uu ku toosiyo diskigii inuu maaragtay ku sameeyo si nidaamsan inuu u sameeyo ayaa marka ayaa la sameeyaa. So marka haddii aan isla fiirino defermentiga waxaan tegaynaa control panelkan tegaynaa waxaan tegaynaa administrative tools ayaan tegaynaa. Markaan tagno waxaan tegaynaa deferment and optimize and drive list meeshay ku qoran tahay. So aan double click ku sameynaynaa. Markaan ku sameyno pagekan ayaa noo soo baxaya. Markaan noo soo baxo waxaan sameyn karnaa marka in aan optimize aan ku sameyno kale oo aan dhahno noo sax maaragtay faylashan maaragtay ayaan sameyn karnaa. Kaliya haddaan ku sameyno optimize marka sawiran garaynaya mujeedaa uu wadaa macnaheedu inuu nidaamiyo iyo isku dayaaya. So marka uu noo nidaamiyay hadda uu isku toosiyay. So marka waxaan maaragtay faylashii iyo wixii diskigii isku dhex yaacnaa ayuu noo toosinayaa. Markuu noo toosiyo inta ujeeda hadda color ayaa maaragtay ayaa nooga muuqda. So marka haddii colorka uu maaragtay zaid u yahay kale wuxuu sameyn karaa in maaragtay faylashaasi isku dhex yaacsan yihiin oo kale. So marka optimize markaa sameyso wixii ayuu ku toosinayaa marka diskigii ayuu toosinayaa. So marka waxaan kaloo sameyn karnaa inaan dhahno turn on aan sameyno oon dhahno run on schedule recommended ayuu ku leeyahay waxaa recommended ah inaa maaragtay aan kula talinaynaa camal Microsoft ayaa waxay leedahay inaan kula talinaynaa inaa maaragtay arrin gareysaan oo aad sameysaan oo computerka automatically uu isku sameeyo. Haddii aan tick aan saarno wuxuu leeyahay weekly maaragtay asaa isku sameynayo week markii la gaarabo asaa optimize isku sameynayo oo maaragtay isa saxayo kale weekly waa dhihi karnaa. Haddaan rabno waxaan dhihi karnaa daily nooga dhig ayaan dhihi karnaa oo maalin walbo computerka ha isa saxo ayaan dhihi karnaa oo asaga iskiisa isa anaga inaan imaano oo optimize aan dhahno uma baahnin isaga ayaa isku sameynaya maaragtay computerka. So marka monthly xataa waa dhihi karnaa bil maaragtay isku samee isku samee waa dhihi karnaa. So marka haddii rabto waxaan sameyn karnaa waxaad dooran kartaa drive-ka markaas aad u baahan tahay in maaragtay aad maaragtay aad ku sameyso optimize. So marka hadda tickta waxaa noo saaran select all iyo maaragtay Windows C waxaa laga wadaa C drive-ka waxaa waaye waa hard diskiga waa the main maaragtay storage of the maaragtay computerka uu leeyahay oo all the files system fileska ay ku jiraan oo maaragtay ayaa la yiraahdaa C. So marka waxaan dhihi karnaa select macnaha tickta wuxuu noo saaray C ayuu saaran yahay automatically maaragtay by default ayuu u saaran yahay. So marka waxaan dhihi karnaa monthly nooga dhig weekly nooga dhig hadda waxaan dhihi karnaa weekly nooga dhig ayaan leenahay. So marka okay ayaan leenahay. So marka waxaan leenahay hadda every week isbuuc walba wuxuu noo sameynayaa maaragtay in drive-kii oo maaragtay intuu hadda ku cadeeyo on waaye mujeedaa fiiri schedule optimizationka on waaye. So drive are being analyzed on a schedule can optimize and frequently maaragtay weekly ayuu ku sameynayaa maaragtay maaragtay optimization ayuu ku sameeyaa inuu isa saxo maaragtay computerkii ayuu maaragtay marka cashirkan waxaan ku baranay deferment and optimize drive list ayaan ku baranay. Marka cashirkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum.